السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنيجي دونا vocabulary مركان لوقت مركت براني السنة وأنت إري إيه أتكسقان مالين كست إن شاء الله وحسوق بين دونا تضبه vocabulary إرياه إري دي إن تزود أو قاضته ما هو إن جملة لحجلسة منم ولاوي دونتيد هدي الجملة لحجلسة وصير تقوله يعني إري ده نقول لاوي إري ماشي نقول على break up واسكودا أما واحدة ما هذا يقرأ. When she cheated on me, we broke up. Markay khiyaantay waan isku dhacnay. Waa jumlada gashatay ma u laawi doontid. Qof baa qoran karaya habo dama ka waran ninka we broke up. Waan isku dhacnay. Waan isku dhacnay. Chase irrigation. The boys, the soldier askari qora doon kartaaba. The soldier chase two prisoners when they escaped from the jail. askarigu wuxuu eryaday labo maxaabuus markay jeel ka baxsadeen waxaad chase taa gashan kartaa hadaad doonto. Don't chase the money ha eryan lacagta. Let the money chase you lacagta ku eryato. Complicated waa adeeg caadigaana ma waa adeeg qofka maskaxdaada ama qofka aan fahmi karin oo kale ayaa tan loo adeegsada ama arrin jiro oo kale aan la xalin karin ayaad oran kartaa it is not complicated wax adag ma aha arrin weeye marka kan ama it is complicated to understand your attitude way adag tahay in dhaqankaaga la fahmo. Taas what I'm talking about bro. meesha falaar ba ku yaal amaanid way noqotaa amaanid af macaanida ay qofka lagu sasabtay waliba weey sabab shaqada damani ku raaciyay. You flatter on me, you flatter me, you flatter me, you flatter me what sabanaysa care of waa kala jarid ka dhexgelid markaan waa marka telefoon soo dhaco kala wada isticmaali kartaa jumladan sidoo kale hadalkii caadiga laakiin waxaan ku hayaa jumlad hadad dhexgeyso jumlada aanad u laaway. jumladu waxa weeye hadalka hayga soo dhexgelin. Don't carry me off ayaa la yiraahdaa jumlada. Don't carry me off, don't cut me off. Humble sidoo leegid. When somebody told you advice, be humble. When somebody give you advice, be humble. Be humble. The command is Allah. Waxa soo dhan waxa weey jumlada aad gashan karayso. Hesitate kala labayn. Hesitate iyana waxa oran kartaa kale I know you hesitate me when I'm talking about this project. waan ogahay inaad kala labaynayso markaan ka hadlayo project-kan. aynu marka kan eegno maxay expressions-ka aan jumlada u geliyay intaan marka aan ku hadlayo oo Soomaaligood xataa is turjumayo. waxaan sii wadan doonaa marka kan jumladaheeni sidaynu hore ku soo qaadanay vocabulary hadda waxaanu qaadan doonaa iyagoo jumlada ku jira phrases expressions ku jira. tii koowaad waxay ahayd break up. waxaad oranaysaa when she cheating on me markay khiyaantay we broke up waan isku dhacnay. markay khiyaantay waan isku dhacnay waa girlfriend ka hadlaya. Soldier askarigu has chased wuu eryaday two prisoners laba maxbuus. It is complicated way adag tahay to understand in la fahmo your attitude dhaqankaaga. You flatter me what is sabanaysaa. Don't cut me off, don't carry me off, don't carry me off ha iga soo dhexgelin hadalka. Let me finish talking aan hadalka dhamaysto. Don't carry me off waxyaabaha aan karta weey iyo inaad tahay wali ma dhamaysano kale I am not done yet. I'm not done yet. taas waa waxyaabaha oran karta mooti. When somebody give you advice, be humble and take. markuu qof talo ku siiyo noqo mid isduldiga oo qaata. Don't hesitate kala labayn to call me inaad soo garaaco when things go wrong marka wax khaldmaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa anigoo teacher Abbas Jaamac Ali. waa inahaas waa intii aan idin soo gudbinayay jumladaha. casharka xigayna waa beginner kanna wuxuu ahaa intermediate. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.